asalaamu calaykum maqaarta meel bajogtiino mar kale muuqaal cusub oo ka gidan wararkii ugu dambeeyay suuqa akhbaaradada hata la diiwaangelinayo dagaalka lagu jiro Monaco Liverpool United ilaa Chelsea xaaladda Marcus Rashford Arsenal oo laacib daayira ka soo qaadatay kooxda Isbariska Mohamed Salah iyo Besiktas maxaa soo kordhaya maxaana ka jira heshiiska hata la warinayo Barcelona iyo xaaladda Joao Pedro Tottenham oo ka shaqeynaysa Xavinho iyo akhbaaradii kale ayaan eegayna hadii muuqaalka shanoolaa garay kanalkana subscribe noo saar hadii aan ku bilownaa akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa warar badan ayaa hata la diiwaangelinaya waliba qodobadu way kala duwan yihiin hal mowduuc oo waxa arkaysaa dhowr nooc loogu kala hadlayo laakiin sheekada Mohamed Salah iyo kooxda Besiktas waa mid ugu badan ee haatan wararka iskhilaafsan ay ka imaanayaan laakiin sheekada xaqiiqdeeda marka laga daba tago waxa ogaanaysaa halka ay sheekadu ku socoto waxa soo baxaya in Besiktas iyo Mohamed Salah ay heshiiyeen sida ay daabacayaan wargeysada qaar laakiin waxa la soconaa in wakiilkiisu uu sheegay maalintii Jimcaha ahayd in ninka la yiraahdo Mohamed Salah aan la ogeyn meesha uu xil ciyaareedkii dambe ka ciyaari doono haatan majalada The Standard 30 minute ka hor waxay soo dhigeen in Mohamed Salah iyo Besiktas ay markaan heshiis gaarayaan waliba dhinaca iyo Besiktas waxa ka imaanaya over gaaraya hal sano iyo qarash 12 milyan 10 milyan oo xil ciyaareedkii oo qaada doono ninka la yiraahdo Mohamed Salah iyo 2 milyan oo gunooyina wadartu 12 milyan in hal sano lagu siinayo ninka la yiraahdo Mohamed Salah laakiin dhinaca Mohamed Salah wax aqbalida oo ku aadan heshiiskaas ilaa haatan lama hayo kaliya wararka ka imaanaya Turkiga ayaa sheegaya in Mohamed Salah uu aqbalay heshiiskaas hal sanana markaan uu qalinka ugu duugayo kooxda kubadda cagta ee Besiktas sanad dheeriyan uu jiri karo laakiin sheekada aan wada ognahay aan la socono waxay tahay in Mohamed Salah weli uu heshiis la gaarin kooxda kubadda cagta ee Besiktas kaliya overkaasna uu yahay mid Mohamed Salah la hor keenay la rabana inuu ka jawaabo hal sano balaas sanad dheeriya 12 milyan wadartu wada noqonayso sanadkiina aad 10 milyan qaadanayso ayaa Mohamed Salah only la hor keenay laakiin inuu aqbala dalabkaas laacibkan u dhaqaaqayo Besiktas ilaa haatan confirm maahan wararku way isqaybsiin laakiin xaaladdu sida rasmiga waxay tahay Salah wali inuu aqbalin heshiiska Besiktas uga yimid kaliyana oo yahay over hor yaala Mo Salah dhinaca kale xaaladda kooxda kubadda cagta Arsenal haatan waxay gabagabeeyeen laacib daayira oo uga yimid kooxda kubadda cagta Tottenham laacibkan waxa la soconaa Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City in si weyn u daneynayeen ugu dambeyn Arsenal ayaa ku guuleysatay Arsenal ayaana laacibkan ka soo qaadatay kooxda Isbariska waxaana lagu magacaabaa Elijah Obinson waa laacib welisa markaan Arsenal ayuu ku soo biiray oo shakadiisu way soo dhamaatay dhinaca kale Manchester United iyo akhbaaradda laga diiwaangelinayo Manchester United waxay markaan doonayaan in Marcus Rashford ay sii hayaan waliba preseasonka kulamada tijaabada ah macallin Michael Carrick wuxuu doonayaa ninkan inuu ciyaarsiisto oo tijaabiyo ayuu doonayaa kadib markaas go'aankii la rabo hal qaato ama hal iibiyo ama laacibkaasi joogo Rashford isagu wuxuu daneynayaa ka bixitaanka Old Trafford mara doonayo inuu halka ku sii nagaado oo koox kale ayuu raadinaya waliba isagu maankiisa wali waxa ka guuxaysa ku laabashada Barcelona maadaama waqti fiican uu halka uga qaatay Manchester United iyadoo waxa u daran qiimaha lacageed ee dalbanayso gaariga 40 milyan si ay u helaan xidigaha ay suuqa ka doonayaan qarashaadkaasna ay rabaan inay u isticmaalaan marka Rashford waxa la leeyahay preseasonka wuxuu qayb ka noqonayaa safka Manchester dhinaca kale ha iloobin xaaladda Monaco dagaalka loogu jiro laacibka Faransiiska iyo kooxda Roma diyaar ay u tahay dalabyada u imaanaya laacibkan inay dhageystaan xidigan diyaar ay u yahay u dhaqaaqitaanka Premier League Chelsea United ilaa Liverpool ayaa markaan ku dagaalamaya ku dar kooxda kubadda cagta Arsenal haatan Manchester United waxay markaan tijaabinayaan dalab gaariya 60 milyan sida ay warinaysa majalada lagu magacaabo Gazzetta dello Sport oo markaan leh Manchester United diyaar ay u tahay inay offer markaan diraan Man United ayaa markaan Chelsea iyo kooxaha kale kula dagaalamaysa xidigeeda Monaco iyagoo doonaya laacibkan markaan inay soo xirigeliyaan Man United ayaana doonaysa laacibkan inay ka dhigaan saxiix labaad oo haatan oo qalbada dhaxa ay soo xirigelinayaan United ayaa hor u soo qaaday Yuri Tielemans oo ku fadhiyo 13 milyan ha ka reebin xidiga kooxda Chelsea ee ka keenay Tottenham ku qiimeysan ninka lagu magacaabo Andres Santos haatan waxay rabaan 60 milyan inay markaan ku qarash gareeyaan laacibka kooxda kubadda cagta Roma Monaco laacibkan sidoo kale kooxaha Talyaaniga gudaha laftooda xitaa waxa warbixinada sheegayaan in kooxaha dhowr ay doonayaan laacibka lagu magacaabo Monaco marka xitaa Roma way iska rabaan laacibkooda inay haystaan laakiin lacag ay u baahan yihiin iyadoo
saxiyo dhowra ayay rabaan inay sameeyaan sidaa daraaddeed waxay dhegeysanayaan dalabyada u imaanaya xidigan United ayaana ah kooxda markaan ugu cadcad ee laacibkan gacanta kusoo dhigi karta sida Galatasaray Sport ee warinayso dhinaca kaleeto xaaladda Chelsea Barcelona ilaa laacibka lagu magacaabo Joy Pedro laacibka liida Joy Pedro waa laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta ee The Blueska waa xidig waqti fiican iyo waqti xunba labadaba hal season wadajiro ku qaatay garoonka Stamford Bridge haatan macallin Xavi Alonso qorshihiisa qayb waxa ka laacibkan inuu siisto xidigan sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa oo waxay rabaan inay soo xirigeliyaan waa targetkooda laakiin markii loo fiiriyo Barcelona sixiyada ay sameeyeen haatan Gordon iyo Ademi labada waxay muujinayaan in Barcelona aysan haatan dan iyo hela ka lahayn laacibka lagu magacaabo Joy Pedro Chelsea haatan waxaa soo baxaysa inaysan diyaar u weyn inay iibiyaan laacibka lagu magacaabo Pedro maadaama ay rabaan haatan inay sii haystaan si walba ahaatee laacibka hore Brighton markaan Chelsea ayuu sii joogi doonaa meel ugama socdo sida wararku haatan ay warinayaan kuwa ka soo baxaya Spain iyo kuwa England ka soo baxaya si wada jira ayay u leeyihiin laacibkan Chelsea ayuu sii joogi doonaa umana dhaqaaqaya Barcelona marka sheekadii ahayd laacibkan Barcelona ayuu ku biiraya Barcelona ayaa qaadanaysa daaqada ayay ka bixaysaa sababtoo 30 milyan Adami ayaa lagu soo qaaday oo Dortmund ka yimid 80 milyan Newcastle ayaa waxa lagu soo qaatay xidiga lagu magacaabo Anthony Gordon marka Barcelona iyada ayaa haatan saan ku bixisa 110 milyan marka ma doonayaan laacib kaleeto oo qiimo waaliyo ku fadhiya markan inay soo xirigeliyaan dhinaca kaleeto kooxda Isbaariska Tottenham Hotspur warar dhowr ayaa ku cusub laakiin sheekada ugu muhiimsan waa laacibka lagu magacaabo Savinio waxaa la soconaa kasoo bilow March April ilaa May June ilaa haatan la joogo in kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay laacibkan ka shaqeynayaan xitaa sanadkan bilowgiisa January kooxda Tottenham waxay heshiis la gaarayeen Savinio laakiin xilligaas Pep Guardiola ayaa gebi ahaanba sheekada joojiyay laacibkan wuxuu sii joogayaa mana ka baxaya Etihad Stadium haatan kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa horumar weyn ka sameynaysa soo qaadashada xidiga lagu magacaabo Savinio iyagoo markaan laacibka heshiis shakhsi la sii gaaraya kooxda Man City iyo Tottenhamna wada hadallada haatan u dhaxeeyay sida Given Sport iyo kuwa kale ay warinayaan waxa la leeyahay waa kuwa marka miro dhal sameynaya Sportskan wuxuu ku sii dhawaanayaan helitaanka xidiga lagu magacaabo Master Savinio marka Savinio muddo dheer ay Tottenham daba taagantahay muddo dheer ay raadinayaan haatanna waxay rabaan inay laacibkan ay soo xirigeliyaan marka Sportska Savinio ay markaan diirada saarayaan soo kale Tottenham waxa ka cusub xaaladda xidiga lagu magacaabo Lucas Bavgal laacibka kooxda kubadda cagta Tottenham dalabyo dhowr ayaa markaan u imaanaya Newcastle United ayaa dalab gaari 46 milyan gudbisay laakiin sheekada waa la soo diiday 24 saac ugu dambeeyna wararku waxay sheegayeen in Newcastle dhowr mar ay xiriir sameeyeen laacibkan ku aadan laacibku diyaar ayuu yahay inuu ka baxo Tottenham idin ruuxda diyaar ay u tahay laacibka lagu magacaabo Lucas Bavgal inuu baxo sababtoo Tottenham waxa ku soo biiray Tonali iyo xidiga kale la yiraahdo Matthew Fernandes oo lacag waaliya haatan ugu fadhiya labadooda waxay ku fadhiyaan 180 milyan sidaa daraadeed Tottenham waxay doonayaan xidiga dhowr inay suuqa dhigaan si ay u helaan lacaga soo celina oo sanduuqa dib lacag loogu soo celiyo Lucas Bavgalna dalabkii ugu yimid kooxda Newcastle oo ku aadanay 46 milyan Tottenham waa ay diideen oo waxay doonayaan qiimo inta ka badan Chelsea iyo kooxo kale tana laacibkan indhaha ay ku hayaan marka waan arkaynaa wixii soo kordha haddii muuqaalkeena wala garay kan subscribe nasar goodbye